wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulim Maxamed ayaa soo magacaabay maamulaha cusub ee wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee degmada Ceelifan yeelan doonto kadib markii maamulihii hore Allah u naxariistay Xirsi Harbeey cigaal ka gooriyay jagadaasi xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay maamulaha cusub Jaamac Aadan Diriye ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Ceelifan iyo waliba maayirka degmada Darweyne isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sanaag xildhibaano cuqaal waayeel iyo waxgarad ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maamulka degmada Ceelifan isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sanaag xildhibaano waxgarad maanta nasiibna waxa inoo joogan in dhalinyaro aqoon-yahana aqoontii xanaanada xoolaha loo dhaqtar xanaanada xoolaha barnaamij fiican baa halka inooga jeediyay waxa ku filan isaga barnaamijka halka inooga jeediyay baynu kula xisaabtamayna anana waxaan diyaar u nahay ka maamul degmahan iyo dadweynaha reer Ceelifanba inaan isgarab taagno waayo reer Ceelifan hadaynu nahay amalay hanti kale ma aynu lihin daarahan ay magaalooyinka waxaanu u harsanayna wax xoolaha nool reermiyi kula maqan yahay banaanka baynu daarahan ku harsanaynaa iyagana masruufanaa dakhli kale meel ay nagma soo galo kalluumaysato ma nihin beeraley ma nihin macdan ma haysano wax kaliya haysano waa neefka xoolaha dhamaanteen ba waynu u soo wada jeednaa sida aynu u ilaashan lahayn u xanaanaysan lahayn halkan waxaan marka hore uga tacsiyeenayaa tacsiyadan horeysiinayaa marxuumkii hore maamulihii hore wasaaradda xanaanada iyo xoolaha ee degmada Ceelifan Xirsi Harbeeye inanka cusubna waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay ku asturo isaguna waa dhakhtar weeye dhakhtarku ama xoolaha noqdo ama ha noqdo mid xoolaade waa bila xuduud sidii marxuumkii hore waxaan jecel lahay kugula talinaynaa inaad bila xuduud noqoto oo meeshii baahi xoolaad baahi caafimaad ka jirto aad gaadho waxaan leeyahay Jaamac Aadan Diriye adna waxa laga rabaa kaalinta maanta lagu dhiibay sidii ninkii hore xilka uu uga soo bixi jiray iyo si ka sii wanaagsanba inaad uga soo baxdo waa run sida la sheegay degmadeenu way badan tahay waa ballaaran tahay baaxadeedu waxayna ka mid tahay degmooyinka ugu xoolaha badan mas'uuliyadda ku saaran ee maanta lagu saaray ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inuu ku fududeeyo halkan waxaan isugu nimid xafladda xilmagacaabista Jaamac Aadan Diriye aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa waan ku hambalyeeynaa waxaan leenahay degmadu waa degmada ballaaran xoolaheeduna waa fara badan yihiin xoolahana xanuuno badan waxbay yeeshaan marka sidaa uu chief caaqilku sheegay shaqa laga raba anaguna taageerayaashaadi baan nahay waana kula shaqeynaa maanta way bishu tahay 14 waxaa xilka loo magacaabay degmada maamulaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Jaamac Aadan Diriye ninka la yiraahdo ayaa loo magacaabay oo wasiirku soo magacaabay waxaan doonayaa inaad noqoto mid u dhagan nugul oo damqada oo ilaaliya oo la socda gabagabadiina maamulaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha degmada Ceelifan loo soo magacaabay Jaamac Aadan Diriye ayaa uga mahad celiyay soo dhaweyntan isagoo bulshadana ka codsaday in la shaqeeyaan magacaabista cusub ee la soo magacaabay degmada aniguna sida odayaashu sheegeen dadkii iga horeeyay sheegeen diyaar baan u ahay inaan dardar geliyo waxaana la igu soo magacaabay degmada baaxadda leh ee xoolaha badan ku nool yihiin runtii xoolo dhaqatada ah reer miyiga u badan xoolahaas nooc kasto ay yihiin ay ku dhaqan yihiin inaan dardar geliyo oo aan haddii alaba ku rooyahay intii taagtayda gaarsiiyo meel sare ayaa aan runtii la soo magacaabay aniguna waxaan doonayaa himilada inaan ka mid dhaliyo waa Maxamed Suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelifan